daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena su'aalaha kediska ahaa oo idin soo sheegi doona anigoo ah Adnaan Khaliif. Su'aalahan waxay ka kooban yihiin su'aalo diini iyo kuwo maadi ah. Fadlan isku day inaad jawaabta hoos inoogu reebto intaan soo jeedin kahor jawaabta. Mahadsanidin. Su'aasha koowaad, sheeg wax markaad qalayso kaa ilmaysiiya. Jawaabta waa basasha. Su'aasha labaad, sheeg salaada aad tukanaysid oo 4 taxood oo xiriir leh. Jawaabta waa salaada maqribka adigoo kusoo gaaray jaamacadda rakacadii labaad iyadoo loo fadhiyo. Su'aasha saddexaad, waxaad sheegtaa kiilo cudbi ah iyo kiilo bir ah keebaa culus. Jawaabta waa isku mid marka la eego xagga miisaanka. Su'aasha afaraad, imisa jeer baad 10 ka goyn kartaa nambarka 100. Jawaabta saxda ah waa 1 jeer, waayo marka aad 10 ka jarto tirada 100 waxaa kuu soo haraysa 90, oo 10ka labaad ee isdhexdeed ka jar waxa aad ka jaraysaa waa tirada 90 ee ma aha tirada aad kusoo bilowday ee ay ahayd 100. sidaas darteeda jawaabta saxda ah waa 1 jeer. Su'aasha lixaad, sheeg magac markii hore loo akhriyo oo wiil ah markii gadaal loo akhriyo oo gabar ah. Jawaabta waa magaca Nuur marka xagga dambe laga soo akhriyo oo noqonaya Ruun. Sheeg wax adigu aad leedahay oo kula dabaasha laakiin aan weligii qooyin. Jawaabta waa hooskaaga ama hadhkaaga hadbsa u taqaanid. Waxaad sheegtaa meydka xalaasha ah. Jawaabta meydka xalaasha ah waa ayaxa iyo sidoo kale kalluunka. Kumuu ahaa ninkii dhaqray nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dagaalkii Uxud. Jawaabta wuxuu ahaa ibnu Qimah. Kumuu ahaa yahuudigii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sixray. Wuxuu ahaa Lubayd bin Acsam. Waxaad sheegtaa gabadhii Alle u waxyooday. Jawaabta waxay ahayd Nabi Muuse calayhi salaam hooyadii. Waxaad sheegtaa suuraddii sababta u ahayd inuu soo islaamo Cumar bin Khataab. Waxay ahayd suuratu Daah. Waxaad sheegtaa asxaabigii la dilay isagoo weligii Alle subxaanahu wa tacaala u sujuudin. Wuxuu ahaa Cumar bin Thaabit. Wuxuu soo islaamay dagaalkii Uxud waxaana la dilay isla maalintaas. Waxaad sheegtaa shaahidkii ugu horeeyay islaamka. Waxay ahayd Sumayya bintu Khayaad. Waxaad sheegtaa sanadka islaamka loo yaqaano sanadkii murugada. Jawaabta waa sanadkii ay dhimatay Khadiija bintu Khuwaylad iyo Abu Daalib. yaa ugu soo hor islaamay reer Madiina.
jawaabta waxaa ugu soo hor islaamay Sacad bin Suraara. aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina. Wixii fikradi talo ah waxaad igala soo xiriiri kartaa ciwaanada social media shaashada idinka soo muuqdo. salaamaad min kulli aafaad.